Markii ugu horreysay ayaa gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa ay shirkadda ugu horreysay dhinaca bixinta adeegyada nadaafadda iyo agabkooda ee deegaan dhowr. Waxa ay keentay qalabkii ugu dambeeyay casri ah kaasi oo ah qalab mishiinno ah oo la jaanqaadaya fududeynta nadaafadda dabaqyada daaqadaha dhaadheer leh ama muraayadaha iyo guryaha villooyinka kaasi oo xal ay u heshay shirkadda bixisa adeegyada nadaafadda deegaan dhowr. Kani waa mid ka mid ah dabaqyada ku yaala magaalada Muqdisho waxaana ka soconaya howl nadaafadeed oo ku aadan muraayadaha iyo daaqadaha dhaadheer ee dabaqani ka muuqanaya kaasi oo loo adeegsanaya qalabka casriga ah ee Rob Access kaasi oo fududeynaya bilicda iyo quruxda muraayadaha kolka nadaafadooda la aado. Waa qalab nadiifinaya muraayadaha howlwadeenno loo xulay shaqada ayay shirkadda ugu horreysay ee dhinaca nadaafadda ee deegaan dhowr halkani uga howlgalaya. Waxay ay suurtogeliyeen markii ugu horreysay in dunida oo qalabkan si casri ah looga isticmaalay in Soomaaliya ay keenaan gaar ahaan magaalada Muqdisho iyadoo la jaanqaadaya dhammaan adeegyada nadaafadeed ee dunida iyo shirkadaha ka jira intaba. Sanado badan ayay u baahi qabeen bulshada Soomaaliyeed in ay helaan adeegga Rob Access oo ah mashiin fududeynaya in dabaqyada dhaadheer iyo weliba guryaha villooyinka laga nadiifiyo dhinaca muraayadaha. Adeegyada looga baahdo dabaqyada dhaadheer ee haatan la dhisay, kuwa dhismaha uu ku socdo iyo kuwa hore loo dhisayba waxaa loogu talagalay agabkan nadiifinaya muraayadaha iyo daaqadaha dhaadheer. Walwalkii iyo walbahaarkii nadaafadda ee muraayadaha iyo daaqadaha dabaqyada dhaadheer waxaa gebi ahaanba meesha ka saartay shirkadda deegaan dhowr. Qorshahaaga u ahaado in aad shirkadda deegaan dhowr ay qayb weyn ka qaadato in ay muraayadaha iyo daaqadaha dhismayaashiina ay idiin nadaafadayso. Sidoo kale shirkadda deegaan dhowr waxa ay kuu keentay mashiinno kale oo casri ah kaa oo loogu talagalay dhaqidda soolarada iyadoo laga nadiifinayo busta iyo wasakhda si wax soo saarka iyo waxtarka korontada soolarka sare loogu qaado. Halkani waxaa ka muuqanaya tiro isku xiran oo soolaro ah. Waxaa dul degay busta, habaaska iyo wasakhda waxaana si degdeg ah uga howlgalaya howlwadeennada deegaan dhowr oo adeegsanaya mashiinno casri ah oo wax badan ka beddeli doona sida haatan ay soolaradan ay yihiin. Daqiiqado kooban, dhaqid nadaafad leh, mashiinno casri ah ayay deegaan dhowr ay ku hanatay in bulshada Soomaaliyeed ay ugu adeegto. Muuqaalkanna waa daqiiqado kadib howshii nadaafadeed ee laga qabtay soolaradan kala duwan. Saaxiib iyo macaamiil joogto ah la noqo shirkadda howlaha nadaafadda iyo agabkeedaba keena dalka ee deegaan dhowr waxay kugu adeegaysaa hannaan hufan iyo howlwadeenno loo tababaray adeegyada kala duwan ee dhinaca nadaafadda. Waxa ay dunida ay la jaanqaadaysaa deegaan dhowr si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan agab iyo weliba goob nadiif ah.